السلام عليكم. قواعد الفقهية حلقة دي 8 سدحات. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. والأصل سida أصلka ku ah في عاداتنا caadooyinka naga sida asalka ku ah waxa weeye الإباحة banaani weeye حتى يجيء إلا يماذو صارف الإباحة banaanidii midkii ka leexin lahaa oo daliilkii waxa laga yaabaa inaad isweydiiso waa maxay caado waxa lagu qeexaa waa waxay dadku caadaysteen oo ay u arkaan inay masaalixdooda ku jirto aqligoodana ay ku garan karaan sida cunadii safarkii iibsigii tusaalahan oo kale waa safar rabtay oo waxaad u safar rabtay America qofba wuxuu ku yiri uma safri kartid America oo ma banaano inaad u safarto marka qofkaas waxaan ku leenahay adeer safarkan waa caadadana asal waxa waa banaani marka noo keen daliil diidaya in America u safarno ilaa asalka caadada waxa waa al-ibaaha banaana waa Allah subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu xarimay iyo waxyaabaha uu san xarimin ya badan waxa badan waxyaabaha aan la xarimin sida darteed ayuu Allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamii'a buwa kan idin abuuray dhulka dhexdiisa waxa yaala dhamaantii Allah waxa dhulka dhex ahaaday annagu noo abuuray si aan u intifaacsano wuuna noo baneeyay ruuxii yiraahdo ma banaana ayaa laga rabaa daliil maxaa yeelay anaga asalkii baan taaganahay oo al-aslu fi al-aadati al-ibaha وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور وليس ماهان مشروعا مدلبنيي من الأمور الرمها حقوضة يعني الرمها عبادة ماهان مدلبنيي غير الذي كي وحن كأهين مذكور لغو الشيغي في شرعنا شرعنا نحديث لغو الشيغي شيغ مربه دو عبادية هي إلهي لغو دوانيو جنة لغو دونيو عذاب لغو عرريو مربه دو شيغ عبادية هي أصل وحاوة إنو سنبنانين تصالحان أو كلا صلاة ظهر قفة وحوت كذي بشان صلاة ظهر وحالته كذا أفر قفة وحوت كذي بشان وحونا يري شنطا وإيقان صحيصا أو صح خلط معها مركو حاليا هاي نوكين دليل أو شيء شنطا إن صلاة إيقان صحيصا محايا لي إياك نعبد إياك أذيك كليغا أمبان إيبو نعبدك وعابدينا الله سبحانه وتعالى سيدان أعابد لهين الله سبحانه وتعالى أساقا نوشاقي أو وحن عقلينا كيكين سنكرنا معها مركز هادرتت هدو مربى الشيء عبادية هاي وإن الله لا دليل هدي الله للدليل عبادة معها بل وبدعة أحبابي قاعدة نقفكي برتها حتى ولدو ذكرى سوفي ذا متكو كان أقوين سوفي ذا كان أقوين حتى ولدو ذكرى وسوفي ذا وحيليهين حضرة الله أي لو قدوان هدوحي الله سبحانه وتعالى لو قدوان نوا عبادنا أصل وحاؤه التحريم التوقيف أي أصل إلا الدليل كوبنينا يلا يلا مركا كل الضوط قاعدة سوفيدة أو ماذا حكسر أو حتى هذا الأصل في العبادة التحريم التوقيف أصل كعبادة وحرام إلا إن الله الدليل كوبنينا صابرك تقدر هذا وسكه هذا دونا هذا أسوقنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حكسر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد روحي عمل سمايا عمل كاسون كدل سجنين أمر كان نجا واللجو علن يعني والديدي عمل كستا أو النبي آن أمر أو قرآن كالجهلين أو سنة الجهلين أو عبادة لقد جنيو روحي سمايا دب اللجو علن حديث كمركات ماذا حكسرت ولا صحه آيات القرآن كماذا حكسر أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله لكن مدقو وليا هذا دوديسو حكو فكرين إن تقوليسته كلي حق وحصرتا إن حق عديسو وقل جاء الحق وزهق الباطل كلي حق عديه وسائر الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد وسائل الأمور
arrimaha waxyaabaha lagu gaaro kalmaqaasidii maqaasidii bay la mid yihiin yacni taargetkii yoolkii waxkum xukum bihada alxukmi xukumka laftirkiisa waxaa ku xukumtaa lizawaa'idi waxyaabaha dheeraadka ah oo dib ka dhasha wasiilo waxaa la yidhaahdaa shay kasta oo shay ku gaarsiinaya wasiilo baa la yidhaahdaa maqaasidna waxaa la yidhaahdaa shayga aad doonayso yoolkiisa shayga aad doonayso yoolkiisa ayaa maqaasid la yidhaahdaa zawaa'idna waxaa la yidhaahdaa shaygaad u socotay markaad gaarto waxa dib ka yimaada ayaa zawaa'id la yidhaahdaa tusaale ahaan salaadii waa maqsadkii midna ogow shaygan maqsadkiisu hadduu yahay waajib wasiiladiisuna waa waajib shaygan maqsadkiisu hadduu yahay xaaraam wasiiladiisuna waa waajib marka salaadii waa maqsadkii waa yoolkii marka salaada inaad tukato wax badan baa ka horeeya inaad weysaysato inaad weysadii u kacdo inaad xaafadii aad ka soo baxdo inaad jidkii aad soo marto si aad salaad u tukato weysadii aad weysaysanaysay xaafadii aad ka soo baxaysay lugtii aad soo lugeynaysay mise gaarigii aad soo raacaysay waxaa la yiraahdaa wasiila salaadii waa maxay waa maqsadkii salaadii wixii ku soo gaarsiinayana waa wasiiladii markaad salaadii aad masjidka timaado aad tukato aad masjidkii aad ka baxdo oo xaafadaad u sii socoto ama lugee ama gaari qaadee iidan waxaa la yiraahdaa zawaa'id masjidkii aad buu kaga fog yahay ilaa inaad 1 hawa mooye ma gaaraysid inaad 1 hawa socoto waa waajib maba gaaraysid ilaa inaad gaari u qaadato maahee inaad gaari u qaadato waa waajib maxaa yeelay waa tan hadda sheegaynay maqsadkii oo salaada ah waajib soo maaha bas wasiiladiina waa waajib shaygu hadduu sunno yahay wasiiladiisuna waa sunno shaygu hadduu xaaraam yahay wasiilada loo sii marayo lagu gaarayo waa xaaraam tusaale ahaan zinada sii socodkeedii waa dembi samaynteedii waa dembi soo noqodkeedii waa dembi wasaa'iru alumuuri kalmaqaasidi waxkum bihada alxukmi lizawaa'idi salaada intaad u sii socoto waa lagu qori tukashadiina waa lagu qori soo laabashadiina waa lagu qori sadarteed culimadu leeyihiin ma la yatimu alwaajibu illa bihi fahwa waajib waxaan waajib ku dhamaystiraynin ilaa in lala yimaado maahee isaguna waa waajib adoonan weysaysan salaada ma ka ansaxaysaa may weysadii marka waa waajib ahbaabi waxa jirta qaacida ay leeyihiin yahuuda oo qaacidadan cagsi ku ah oo waxay leeyihiin yahuuda al-ghaayatu tubarriru al-wasiila oo micnaheedu yahay marba hadaad ujeedo iyo qasad leedahay wax kasta oo u sii mari karto oo dhan way ku banaan tahay qaacidadan ay cagsi ku tahay wal aslu sida asalka ku ah fi caadatina caadooyinkanaga al-ibaahatu banaani weeye hatta yaji'a illa uyimaado saarifu al-ibaahati banaanidii midkii ka leexin lahaa illa uyimaado oo ah daliilkii yani caadada sida asalka ku ah waxa weeye waa banaani walaysa ma ahaanin mashruucan mid la baneeyay min al-umuuri arrimaha xaqooda yani arrimaha cibaadada wax la baneeyay ma aha mid banaan ma aha ghayra alladii kii wax aan ka ahayn madkuurun lagu sheegay fi sharcina sharciga naga dhexdiisa lagu sheegay shaygu marba hadduu cibaado yahay asal waxa u ah inuusan banaanayn qaacidada hore waxay ahayd caadaadka asal waxa u ah banaanay qaacidadana cibaadada asal waxa u ah xaraam maxaa yeelay waxyaabaha caadaadka ah dadka bini'aadanka ah aqligooda way ku keensan karaan maxaad faa'iida maxaad cuntaa inteed u safartaa aqligooda way ku keensan karaan laakiin cibaado maxaa alla raali gelin in aqliga lagu keensado marnaba wax dhacay maaha aqliga lagu ma keensan karo saadarteed cibaadada haday shaygu marba haduu cibaado yahay waa in loo helaa daliil hadii aan loo helin daliil ku tusinaya shaygan inuu banaan yahay oo ka ansaxayo sax maaha wasaa'ilul umuuri arrimaha waxyaabaha lagu gaaro kalmaqaasidi maqaasidi bay lamid yihiin yani targetkii yoolkii waxkum xukun
بهذا الحكم حكم كالفتر كيس وحكو حكمتا للزوائد وحيابها ديرات كأ أو ديب كردشة